meesha ma taal ana hadii bisho Soomaaliya dhan waxay gaaminsantahay inaan billahi Soomaaliya dhan waxay gaaminsantahay inaan filmaan saksiya jilay wariyaha dad aan baxrabti fatada diibo nimanka fatada laga waso amal dad soo sharaxdid naga soo eradid waxa diraadaa way kena qariisahay saas ku soo ama everybody was fine wala calada inta sadarta qariisiyo fatada la digaale ala kulli hal waxay ii sheegaya yesterday hadii aniga sharafkayga loo socday dhulka la galay qabiilkayga in la bahdil hadii loo socday 10 sano haday sii joogan ma jeerteen midabdooda la guursan mayo midkay la midii maanta mid ayna salama arko hal gabar oo inta ayna salama arko hal gabar oo ninkeena sallallahu alayhi wasallam kaaga salama arko 24 hour waxa maanta ka shaqeeyay oo tiktok maanta keenay oo qabiil noo keenay oo xumaan noo keenay oo ay noo keenay oo ninkeena sallallahu alayhi wasallam aynayo midkii waa midkaan qabiilka ku lagu taageeraya oo qofkii maanta nabigeena ay qof qabiil ku taageera jahanabada alaageeyo qof islaamada asagoo aan ogeyn ku faayna jahanaba alaageeyo taas gabadhiisa inta lagu raacayo inay intuu dhaagifti loo diraa diyaarad ilaahay baa ku dhaafay shalay aniga sharaftayda loo socday laakiin maanta inayna lagu ciyaaraya dhin inayna saaf loo boodboodinaya maanta waxa dikaas ninka waa ibaqti jiiday wuu igu soo laabtay boqol iyo konton dhibaato igu sameeyay tiktok-gayga 500 ku marayo iga xiray intaas dhibaateynay wax walba igu sameeyay ninkaas waa igu daawanayseen kulligiina quraasba ku wada fadhideen except Ahmed Fadlan hadalka markuu inta marayo maanta shalay aniga sharaftayda haduu u socday oo basra buus ay sharaftayda u socotay sharaftayda dhulkay la gashay haday u socotay maanta reerkayga inay dumisana ma dumin karto aniga ninka ay qabo horta sidiisaba waa libaaxna wuxuu doonu sameeyaa oo iguma diri karto anu in absama oo dhaqan leh oo ogaadeena ba iqaba oo cooliyahana nin ay dhinaciisa soo mari karta basra ana weysan karta ma nin ay hooskiisa ka baqraad laakiin labada gacmood iyo labada lugood buu ka xiran yahay because waa fanaan shaqo Soomaaliyeed ku heesa marka ilaahay amarkiis anagu ana dad social media aad u isticmaala anu comedian ba social media aad ba u isticmaala laakiin dadka fanaaniinta ah waxyaabo badan ay ka dhowrsadaan baadida oo anu aan ka dhowrsan sida hadda qabiilkayga oo kale qabiilkayga every second baa ku faaraa laakiinse dadku qabiilada qof fanaan intuu soo fariisto inkastoo fanaaniinta hawiye ay sameeyaan oo gabadhan hadda fanaanada ah oo everyday ay soo saarto saacad habarkidina ahay hees soo saarto everyday oo fanaaniinta hawiye official u tahay fanaaniintu daarad waa xishoodan qabiilna kuma faana ma beentayba ala kulli hal waxay ii sheegaya yesterday hadii aniga sharafkayga loo socday dhulka la galay qabiilkayga in la bahdil hadii loo socday 10 sano haday sii joogan ma jeerteen midabdooda la guursan mayo midkay la midii maanta midgaha midkaan waa qofkii dhan oo baktiga yar xalaala maanta ninka ma jeerteen because gabadhiisa inta lagu raacayo inay intuu dhaagifti loo diraa diyaarad diracyada iga xiran yihiin maanta aniga ragii difaacilaha duruucda ila maxaa ku soo haray waxa kaliya oo haray waxay tahay ragga daaroodo aan meesha la saar ninka warsadii iyo wiilkan kaleeto in adeerkay ila saaran oo ay iskeen bari doontaan aqoonta u lahayn iyo antigay murtigaal maanta waxa ii sheegaya ilaahay baa ku dhaafay shalay aniga sharaftayda loo socday laakiin maanta inayna lagu ciyaaraya dhin inayna saaf loo boodboodinaya maanta waxa dikaas ninka waa ibaqti jiiday wuu igu soo laabtay second laabku igu soo laabtay in adeerkayga ku ciyaaraya adigu diyaarada intuu adigu hada iga raadinaya aniga ima doonay this time I'm sorry uma jawaabi kar this time aniga ima rabo adigu iga raadinaya ilma adeerayaalo yesterday sharaftayda loo socday runta idin sheegaya sharaftayda dhulka la galay sharaf meesha ma taal ana hadii bisho Soomaaliya dhan waxay gaaminsantahay inaan billahi Soomaaliya dhan waxay gaaminsantahay inaan filmaan saksiya jilay ani ilaahay ima sameystay dameerkuba diinta way sheegtay dameerka qofka dameerka diinta way sheegtay fahmada dameera leeyahay anoo naagaan iska kaacin karo boqol sano oo ari aan loo shaayna waa iga qontaysa waxaad tahay mid xub oo aan anigu shakhsiyan haysta oo aniga maanta iyo ay gadaal ka soo gaadora haday qabiil noqotan aw qabiil ugu caynayeen qabiilka haday ku taageeraan nin laag caynayo haday qabiil ku taageeraan ninka ay ku taageeraan iyaga kiliida qofkii maanta ku aadinta in adeerkay u tukayado gabar caynayo waa ku taageero ana kiliida laakiin ninka anigu way hooseeyaa maanta wallahi oo bilaa oo tabaa sida lagu eego iiga hooseeya sababtoo aniga aqoonay oo adoo dhirey oo way furo oo maanta ugu haya wariyaha dad aan baxrabti fatada diibo nimanka fatada laga waso amal dad soo sharaxdid naga soo eradid waxa diraadaa way kena qaniista ahay
بعض يا يقان ونمك ستروك صعب لكن والله أطلع إن أنا بس يجيني هو